السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا عشر كيني تضباد ابليكيشن كاكسل كا ساك ان شاء الله تعالى وحنو عشر كينن كحسابين دونا حساب تلو يغانا ماكسيمم يا مينيمم هداينو دانكا سومالي غو بدلنا مادوين كان هالكان وحنو كايسنا مادوين قفكن ايديكي سواكن مغيسي ارديغا مغيسي سواكن عربيغا انتا سوكيني سومالي غانا انتا حسابتنا انتا حمدنا سيداسي لميدا وحن حسن إلهان سيداسي لميدا يوروبنا سيداسي لميدا هدبا ماكسيمم يا مينيمم حيين ماكسيمم يا مينيمم وحن كحسابين دونا إن شاء الله تعالى أرديغن كوباد مادة ugu badan yahay oo maximum waa maadada ugu badan yahay ama ugu sareeyay waxaan kala ku xisaabin doonaa maadada ugu yar yahay ama ugu hooseeyay ardaygaasi maadada ugu hooseeyay haddaba marka aynu xisaabinayno maximumka ama maadada ardaygana ugu yaraa saasaynu dooran kadib waxaan leenahay equal magas baynu qoraynaa magas dabeedna tab baynu leenahay isla markaana saasaynu hay'ad u soo saaraynaa dabeedna waxaan leenahay enter maadada ugu sareeyay ardaygaasi waa 9 keenay waana waa maadada Soomaaliga labadan maadada kalaba waa hooseeya maadadii ugu hooseeya waan xisaabin doonaa iyadana waxaan leenahay equal min baynu leenahay kadibna tab minta wax loo soo gaabiyo minimum magastana maximum kadib waxaan sidoo kale u highlight garayn dabeedna enter ayaynu leenahay maadada ugu hooseeyayna waa taa uu keenay 76 oo carabiga xisaabta 85 buu keenay uu ka sareeyaa marka maadada ugu sareeyana waa taa maadada ugu hooseeyana waa taa haddaba hadii aynu halka arday la soo baxno laba inaga u doorle inaynu sidan kuwana u xisaabino iyo inaynu waxa weeyaan ana wixii maximum soo ka horemaan soo saarin halkan yar u naajiido dabeedna waxa weeye ardayda kale oo dhan u soo saaro haddaad eegto aynu xasan ka bilowno isha yar baynu qaban markay qaabada noqoto marka hore waa sida markaynu isha yar qabanno tabta kadibna qaybteena bidixda ayaynu inagu hayna hoos u jiideynaa haddaynu eegno haddaba xasan jaamac maadada ugu sareeyay waxa weeye 9 keenay de wax kale oo 9 ka sareeya ma jirto ardayda la yado ilhaan maadada ugu sareeyay waa 85 inta kaleba 287 bay noqonayaan 85 bay ugu sareeyay maadada inanta la yado Europe Ali waxay keentay maadada ugu sareeyay waxay keentay 98 saddexdan maado dad eegto tan bay ugu sareeyay oo Soomaaliga 98 bay haysataa tanna sida la si lamida hadaynu ardaygii koobaad hore soo saarnay iyadana ishiireed baynu qaban hadii kale sidan oo kale waxa weeye aynu xisaabin iyadana waxaan leenahay xasan hadaynu marada tusaale ku bixino min baan leenahay kadibna tab dabeedna soo highlight garay saddexdiisii maado dabeedna enter dhe wata maadada ugu hooseeya ardaygani xasan la yiraahdo waana dhab oo waxa weeye midna wuxuu haystaa 89 midna 9 buu haystaa maadada ugu hooseeyay 8 buu markaas keenay haddaba xasan waxaanu rabnaa labadan kale inaynu waxa weeye qaacidadii ku xisaabino oo waxa weeye ishan yar jiidno waayo haday ardaydu badan tahay mid walba gaarkiisa ugu ma xisaabin kartid hadda ardayga koobaad la soo baxdo minimumkiisa ama maadada ugu sareeyay hoos bad u jiidi karta ardayda oo dhan isla markaana arday kasta iyadoo loo eegayo maadada ugu sareeyay ay waxa weeye gaar loogu xisaabinaya minimum kana sidaas lamida totalka sidaas lamida totalka hore inuu soo dhiganay isaga laftigiisana saa u jiidi kartaa dad ardayga koobaad soo saarto totalkiisa inta kale waa jiidi kartaa si aad si dhib yar waxa weeye ugu soo saarto average-ka si lamida waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabaha fududeynaya Excel-ka inaad markaas waxa weeye si fiican aad ugu shaqaysid oo hawl yar haddaba waxaanu samaynaynaa labadan arday kale ma xisaabinayno saasaynu dooran ishan yar baan tagi markaad halka dul joogto calaamadaas sameeyay marka hore calaamadaas suuleeyay ballaaran marka dul tagto calaamada yar madow kadib waxaad qabanaysaa mouse-kaaga dhanka bidix button-ka yar ee bidixda xiga adoo haya ayaad hoos u jiidaysaa haddaynu eegno ardayda la yiraahdo ilhaan farxaan
maadada ay ugu hooseysay haddaynu saddexdeedii maado waatan aynu eegno waa maadada ay 70 keentay. inta kale waxay keentay 285 maada inanta la yiraahdo Yurub Cali maadada ay ugu hooseysay waa maadada ay 74 keentay. inta kale maxay keentay 78 iyo 98 bay keentay. marka maadadaasi ay ugu hooseysay waana maadada Carabiga. qaabkaasi ayaynu u xisaaminaynaa ardaygu maadada ugu sareeyay iyo waxa weeye maadada ugu hooseeyay. tabtaasi ayaynu ku soo saari karnaa insha Allah taala. waana waxyaabaha Excelka loo barto inaad si fudud waxa weeye average-kii, total-kii, maadada ugu sareeyay, maadada ugu hooseeyay insha Allah taala aad tabta ugu fududeysatid. lacagta ugu badan hebel xilligu bixiyay haddaad haysato meherad oo kale sanadka bisheeba lacagta ugu badan ee soo gasha waad ku xisaabin kartaa, dhib ma laha. marka insha Allah taala adoo maadooyinkan ku bedelayo wax weeye bilihii ayaad waxa weeye ku sameynaysaa. tusaale ahaan ka soo qaatana waa bil, ka soo qaatana waa bil, tanna waa bil. 12 bilood ba halkan bay ku dhan yihiin. waxaad oran kartaa bisheeban ugu lacag badnaa waad xisaabin kartaa. markaasi insha Allah taala sidaas ayaynu ahaanaysaa intaynu casharkan xiga ku kulmi doono. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.